السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وإنجنير عبد الله ماحي. هل كان معقول أكاديمي وصل هذا كورس كان أنا قلت لقلي إن أرضية بلوجة رفت أركتكتشر رفت حكومة هاي سوفت وير هذا اللي أديك سيدا بيلدين إنفورميشن موديلين إن شاء الله إن كورس كان حقوق قادن دونا إن بيجنر فيلا ينقو قادن دونا فيلا داس وان ديارين دونو إن 2D بلان كذا 3D كذا sections كذا elevations كذا يو سكاتشوالين كذا بروجكتي عمر كان دمينه وحابود ويلان دونتا فيلا كستو ومعرض تعبر والبحر هاتينا diyaarin doontid insha Allah marka intaan aad dhameeyso waxa kale oo gudbi doontaa hadaad ma aragtaa rabto inaad sii wadatid qayb kale ugu talagalnay dadka intermediate-ka lagu qaadan doona iyadana apartments kaas insha Allah wuxuu noo socon doonaa muddo bil ah si detail ahaan ayaan u diyaarin doonaa tusaale ahaan flooradii ground floorkii first floorkii third floorkii saa loo diyaarinay qaabkooda qaabsi professional ah with area-dooda iyadoo la socoto waxaan diyaarin doonaa sectionadooda sidoo kale elevationskooda diyaarin doonaa waxaan kaloo diyaarin doonaa waxa la yiraahdo scheduling quantities ka ayaan diyaarin doonaa detail dhameystiran ayaan ka diyaarin doonaa waxa kale oo jiro qayb kale advance ah ayagana waxaan ku qaadan doonaa hadii ilaahay idmo masjid kumbilada qaabka loo sameeyo minareedyada iyo doomiska ayana si advance ah ayaan u qaadan doonaa 3 bilood ee qaadan doonaa ugu talagalnay beginner intermediate iyo advanced level engineer raftada intaas ka qaadato waxaad awood u yeelanaysaa in project walbo ku saabsan engineering-ka ama dhisme inaad qabsan doontid oo waliba sida ugu quruxda badan aad soo saari doontid haddii aad adeegsan jirtay software-ada la xiriira CAD-iska sida ArchiCAD AutoCAD iyo wixii la mid ah insha Allah waxaan kugu bishaareynaa Revit inaad kaga maarmi doonto software-daas ku soo dhawaada insha Allah waxaan ku qaadan doonaa min bilow ilaa dhamaad ilaa